dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay ku daadgureysay gobolka Gado muxuu yahay qorshaha xilligan ciidankaasi loo geeyo gobolka Gado warbixin la xiriirta ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad ugu cusubtiin fadlan ku soo biira barteeda Facebook iyo YouTube-ka si aad uga mid noqotaan saaxiibada ugu xiran halkan kala socda wararka warbixinada muuqaalada had iyo jeer aan halkan ku soo baahiyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxa ay shalay ilaa maanta ay ku daadgureysay gobolka Gado gaar ahaan degmada Ceelwaaq waxaana halkaasi loo geeyay ciidankan inay xaqiijiyaan amniga guud ee gobolkaasi waxa jiray dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada Itoobiya ka wadeen xadka gobolkaas oo la wadaaga dalka Itoobiya waxaana la sheegay in qorshahan dowladda federaalka Soomaaliya ay uga gol leedahay in ciidankan ay xaqiijiyaan amniga guud iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya xadka Itoobiya inuu la wadaagno gaar ahaan gobolka Gado waxa si la mid ah ciidankan uu qorshu yahay inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga guud ee saldhigyada ay ciidamada midowga Afrika ee howlgalka ADMIS qaybta ka ah ee Kenya ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah degmadaas oo dhawaan ay faaruujin doonaan inay si guud ula wareegaan ammaankooda mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq oo muddo sanado ah ay ciidamada Kenya ku sugnaayeen ciidanka Soomaaliyeed ee la wareegaya mas'uuliyadda ammaanka degmada Ceelwaaq waxa uu qayb ka yahay qorshaha ay dowladda federaalka Soomaaliya si guud ammaanka dalka ay uga wareegayso howlgalka midowga Afrika ee ADMIS kaas oo gabagabo ku dhow marka la gaaro bishan December ee sanadkan aynu ku guda jirno dabayaaqadiisa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kol hore waxa ay la wareegtay mas'uuliyadda amniga saldhigyo ay ciidamada midowga Afrika ee ADMIS ay ku kala sugnaayeen shabeellada dhexe iyo si la mid ah gobolka shabeellada hoose waxaana ugu dambeysay oo ay ciidanka ADMIS soo faaruujiyeen saldhig military ay ku lahaayeen degmada Jowhar ee gobolka shabeellada dhexe oo caasimad u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa inoo sheegay in ciidankan la geeyay shalay ilaa maanta gobolka Gado kaliya aysan la wareegaynin mas'uuliyadda saldhigyada ciidamada Kenyaanka ay baneynayaan balse ay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada Itoobiya ka wadaan xadka ay wadaagaan gobolka Gado iyo Itoobiya waxaana Itoobiyaan fara badan oo doonayay inay gudaha Soomaaliya sifa aan sharci ahayn ay ku soo galaan dhawaan looga hor istaagay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Matabaan oo is hor istaag ay ku sameeyeen xubno ka tirsan maamulka degmada iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska kuwaas oo gabi ahaanba u diiday ciidamada Itoobiyaan oo doonayay inay gudaha u galaan degmadaas waxayna dib ugu celiyeen halkii ay ka yimaadeen oo ah xadka dhinaca feerfeer ee Itoobiya oo gobolka Hiiraan uu la wadaago dowladda Itoobiya wixii warar ay ku soo kordhay arrimahan halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa nabadgelyo